iyadoo lagu jiro bisha barakaysan ee Ramadaan ganacsatada yaryar ee magaalada Jigjiga ayaan saaka u kurgalay qaabka wax looga iibsado maadaama lagu jiro bishii Ramadaan balse ganacsatadu waxa ay ka cabanayaan inuu aad u hooseeyo iibka laga iibsanayo sidoo kale waxa wax ka weydiinay farqiga u dhaxeeya ganacsatada waaweyn iyo ganacsatada yaryar waana kuwan iyagoo ka hadlaya dareenkooda shayga 200 riyaal iyo 150 labadaba inta soo galacsada ayaan shaqeeyaa inta galacsada shay waxa jirta waxba ay ka soo waxba kama yar faa'iido faa'iido kol khasaara badanayba kol shayga aan waxba keenin ba jirta marka idinka iyo ganacsatada waaweyn farqi kala faa'iido fadhi waaweyn baan noo dhaxay waxba noo dhaxayaan marka adiga ahaan ganacsatada yaryarka abaad ka mid tahay dabcan bishii barakaysan Ramadaan ya shaqada saameynta lag bay Ramadaan ku yeelatay in badan bay ku yeelatay ayuu Xasan Aadan Baleed Xasan Aadan Cabdi dadka waxaan nahay mataqaanaa ganacsatada ee meesha maanta ka shaqeynaysa imika isbedel Ramadaanka galiyo isbedel baa nagu dhacay xoolaha horta waxba naga iibsado intan dareen abaara waxa dhulka ka dhacay mataqaanaa meel walba laga dareemayo hadii ilaahay yiraahdo alla ku rooyay waxa weeyaan maanta tay kulay talawaata ilaahay dhulka abaara saameeyay abaara miyi iyo magaalaba miyigu ha u daraaday horta miyigu aad buu baabay roobka ilaahay nasiya waxaan ku wuri maanta aad baa looga dareemay dawladda waxaan ku codsanaynaa iyaguna inay nagu teegaraan waxa maanta inta shaqada ganacsiga maanta aan ka shaqeysan in nagu teegaraan oo maanta mid walba meesha uu joogo mid walba lagu teegaro wixii nin walba wuxuu u tar karaya loo taro ganacsatada waaweyn iyo ganacsatada yar isku ma dhaw faqri weyn baa u dhaxeeyna adeer ganacsatada waaweyn warba uma hayaan ganacsatada yar baa meesha ganacsatada qaar kama dhaleedahay caruurtu kuwan iyadu yar horta iyagu way rafaadsan yihiin wixii iska curaaw geesta kale waxaan dhankooda wax ka weydiinay dadka ka adeeganaya iyagu ganacsatada yaryar oo sheegay in ganacsatada yaryar ay ka helaan dhar jaban waxa la yiraahdaa Xasan Ayu Xaaji waxaan ahay shacab kamida ka adeeganaya meeshan hadda waxaan iibsanaynaa waxa weeyaan waa khamiisaantii maadaama aan ku jirno bishii barakaysnayd ee Ramadaan marka aan iibsanayno haddaan u dhaxayno qiimaha markaan tagno Taiwanka iyo markaan halkan joogno waa farqi weyn baa u dhaxay sababta hadda kan waxa la iga siiyay 150 tan waxa la iga siiyay waa 100 qarsh hadii aan tago xagga Taiwanka oo kale kan oo kale waxa la iga siiyay waa 1200 tan oo kale waa 400 300 meelahaas marka imika waa dharkii ciidda Soomaaliya may hadda inaan ku cibaadaysto uma rabaa maadaama oo bariya ciideed ay tahay marka farqi kaleeg baa u dhaxeeya dadka waaweyn ee ganacsatada farqi weyn baa u dhaxeeya sababtoo ah qiimahan siistaba qiimahan ma taqaanaay maadaama nahay dad iska xoogsata ah oo ma taqaanaay qiimo jaban maadaama yahay adiga arkay hadda si loogu urursan yahay meesha khamiiska dhinaca bacdaha tugaamada waxaan la siiyaa 1500 ilaa 1 riyaal khamiiska hoteelkana wuxuu marayaa 100 ilaa 150 riyaal marka waqaali weyn dadkan baqaarada xaga dharka laakiin xaga hoteelka dadka dad yarta ma iibsan karaan khamiisada waxay ku kala duwan yihiin way qiimaha dad lacag haysa bis ku jira marka dadkii dadin karta oo kale khamiiska hoteelku siisanaya 150 riyaal marka maciishada nagala dhimaleen kan oo la iibsanayo khamiiskii halku ka maray 500 ama 1 riyaal iyo halkan laga siisanaya 150 ama 200 kolka waa qiimo jaban sida kuwa kale kolka ku iibsan kar weeday inaad kan ka iibsatid oo dharkii ku labisatid hadana waa isku mid waxba kuma kala duwana ka dadkan waxay leeyahay beer tarxaasa ka fiican ayni oo dadkan baa iska leh waa wax uu dheeray taama dharka aad xidhatid kulli wax la xidhan baa la rabaa haday qaaliyiin iyo hadii kale waad xidhanaysaa kana waad xidhan hadana waxba kuma kala digno labadii shakhsi ee kan xidhnaa waa isku mid ku labadoodaas kastaba ha noqotee ganacsatada ayaa codsanaya in kaalmo ay siiso dawladdu Mudiin Aadan Maxamed warbaahinta RTN Jigjiga